الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro malaha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray gaar ahaan deegaanada Galmudug koonfur galbeed iyo Hirshabelle dadka Soomaaliyeed argagixisadu dagaal kulama jirto dawlad danna kama laha waxaa mabda u ah cabsi gelinta bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabateynta abriyada gargaarka u baahan waxaa la yiri meyd maxaa u dambeeyay kaas la sii sido dadkii hoteelka Xayaat joogay maxay bi'iyeen ceelashii tuulooyinka Teedaan Bukure Inabaal ma murtadiin ayay ahaayeen boqolaalkii birmageydada ahaa ee 14 Oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dawladeed ayay ahaayeen dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowreyd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan sow ma ahayn waana dhaqankooda in markasta oo guul darro la kulmaan si nafla caarinimo ah in ay ugu soo laabtaan shacabka oo ay xasuuqaan astaantaas waxaa la yiraahdaa heliliqo ama neef gowracangeeda kama waabto aayadii quraanka kariimka sow ma ahayn ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وحديثك رسولك عليه الصلاة والسلام ما أهين خوارجت وكلاب النار وحديثك كلام ما أهين قفك قف دلا وحول لمديها إساق أو دتك أو دن دلي دتك سوماليادو ولا ليا دتك إلهي إيا رسول كيسا صوبناي saas ku sifeeyeen cudurdaar ma leedahay in loo cadaalad doonto in dhaqaale la siiyo in guri laga kireeyo in la qariyo ama la dhuumiyo isaga oo dhagar maleegaya ma aha inay diin laawayaal yihiin oo kaliya ee waa mas dilaa ah oo marada kugu jira mas dilaa ahna xalkiisu waa dil inta uusan ku dilin shacabka Soomaaliyeed waa ogahay inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quuska taagantiin waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroor diiqda joogtada ah waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah oo isugu jira ehel walaal hooyo aabba qaraabo iyo saaxiibo waan ogahay inaad waliba dawladda soo dhowreysaan intaas iyo kan badanba waan ogahay maxaa yeelay idinka ayaan weligeyba idinku dhex noolaa oo xogogaal baanu ahay duruufaha idinku gadaaman hase yeeshee waa hubaal Soomaaliya waa ay ka guuleysanaysaa cadowga gardarrada ku haya dalkeeda dadkeeda iyo diintoodaba dawladdeena ciidankeena iyo shacabkeenuba isdhiibi maayaan ilaa laga helayo dal Soomaaliyeed argagixisada ka caagan cadaalad iyo nabad ka jirto oo barwaaqaysan ilaahay idankiisa in yoolkaas aanu gaarna waxay u baahan tahay adkaysi nafuranimo geesinimo iyo ka go'naan waxaan bogaadinayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida dhiiran iyo geesinimada leh oo ay dagaalka ugu jiraan gaar ahaan waxaan bogaadinayaa ciidamada qalabka sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin la dagaalanka argagixisada sidoo kale shacabka degan gobolada dalka
iyagoo abaar la tiicaya haddana diiday dulmiga argagixisada. sida aan sheegay bilowgii horeba, dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go-an in colaada gaamurtay ee argagixisada al-shabaab lasoo gabagabeeyo. sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljireeyayaal daahsoon oo u taagan fashilinta dhagarta kooxaha argagixisada ah. argagixisadu annagay nagu dhex nooshahay, waana inaan iska qabannaa. isbedel waa inaan ka keennaa sida aan argagixisada ula dhaqmaynaa. aad iyo aada umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat